waxaynu dhex soconnaa caasimadda dalka Rwanda oo aragtaan quruxda iyo bilicda ka muuqata. Ogow daawadow laguma gaarin keliya af ee waxaa lagu gaaray iscafis iyo hubsiimaha nabadda wadadeeda. Ogow sideedaba wax walba adduunka ka soo dhacay ama dal walba oo colaadi soo martay waa ka gudbaa. maanta waxay marayaan jaranjaradii labaad oo ah nabad baa naas la lugale. dalkan wuxuu noqday wadanka ama dalka Afrika magaaladan waliba ugu nadiifsan in laga helin wax saxara ama qashina. sidoo kale waxaa wadanka ka mamnuuca dhammaan bacda ama wax lagu qaato ama bacda wax lagu keeno. dalkan ayaa wuxuu madaxweynihiisu isna dhanka kale ee nadaafada u dhigay oo hubsaday in uu dhammaan muwaadin walba oo dalkan u dhashay ka qayb qaato bishii hal mar nadaafada dalkaas. daawo quruxda iyo bilicda dalka Rwanda oo hore u dhaqaaqeen webiyaal dhiiga. dadkan waxay fahmeen inay ugu qiimaha badan ama waxa ugu qiimaha badan ay tahay nabad. haddii nabad la helo waa la helayaa horumar. haddaba waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka baryayaa in aynu inaguna haddii aan Soomaali nahay fahanno qiimaha nololeed ee keeni kara nabadana markay timaado hanashadeeda aan yeelano. ogow daawado dhaliil dawlad madaxweyne sideeda laguma gaaro horumar ee waxa lagu gaaraa midnimo iyo isku tashi. dadku haddii ayna iscafiyin oo iscafis laga shaqeynin ma timaado bilic magaalo quruxeed ee waxa yimaada dhiig qulqula. dalkani maanta wuxuu marayaa darajadii labaad oo ah hiigsiga iyo la tartanka caasimadaha adduunka. sideedana bini'aadanku wuxuu qiimo ku leeyahay inuu iloobo wixii tagay. iscafiskuna waa qaybta ugu weyn ee Ilaahayna nafray. wadankani wuxuu maanta aad ugu naaloonayaan dadkiisu quruxda iyo bilicda magaaladoodii ay hiigsatay iyo maalgashiyaasha caalamiga ah ee ka dhisanaya dabaqyada dhaadheer iyo muwaadiniinta ogaaday qiimaha nabadu leedahay iyo ka soo toosida baranabadeed. dadka Soomaaliyeed wixii tagay inay iska iloobaan waxa maanta yaalana ay bilaabaan taasoo ah iscafis iyo gacmo isqabsasho iyo walaaltinimo. midnimo ma meel lagu gaaraa ee Allah noo midee oo Soomaaliya nabad ka yar. daawade waxaanu dhex soconnaa bartamaha magaalada ee caasimadda